maalmo kadib markii ay maqashay in gabadheedu doonayso inay guursato, Maali Faysan ayaa murugo darteed buur dheer ka soo booday. Waxay ka cabsi qabtaa in gabadheeda yari ay dhaawac ka soo gaaro jacaylka aadanaha. Tusaale ahaan, waxay ku dhacday webiga iyadoo koofi qaadanaysa. Markii ay aragtay wiil aan waxba garanayn oo jilbaha u dhigay si uu gacanteeda u weydiisto, gabadhii farxad ayay ku aqbashay. Maali Faysan ayaa u digaysa inay iska ilaaliso maadaama aysan ahayn ninkii markii hore soo toosiyey. Waxay uga digaysaa in ninkan uusan ahayn amiirkii, balse uu ahaa mid ay garabkeeda taagnayd. Maali Faysan oo ay horay u soo dhaawaceen ragga ayaa si degdeg ah u heshay gabadha yari. Waxay muujisay caro cad, balse markii ay aragtay ilaha rajada leh ee gabadheeda, jacaylkeeda hooyanimo ayaa dib u soo cusboonaaday. Waxay si aamusnaan ah u ogolaatay in gabadhu ay raadsato farxadeeda. Balse gabadhu waxay la timid dalab kale, in Maali Faysan ay la kulanto qoyska wiilka. Maali Faysan oo aad u neceb aadanaha ayaa mar kale isdhiibtay. Si ay farxadda gabadheeda u ilaaliso, waxay ku celcelisay dhoola caddaynta ay ku aragtay webiga. Waxay ahayd qof dhoola caddayn jiray ilaa iyo markii la gooyey baalalkeeda. Maali Faysan hadda ma qosli karto. Gabadhii amiirada ahayd ayaa keentay maro ay ku qarsato geesaheeda maadaama ay ka cabsanayso in hooyadeed ay eebayso. Maali Faysan oo ahaa boqorada keynta ee cabsida weyn lahayd ayaa isu dhiibtay iyada oo raadinaysa jacaylka hooyanimo, taasoo ka dhigtay mid dhib badan. Iyadoo wadata tukaheeda iyo gabadha aan waxba ka fekerin, waxay yimaadeen webiga ku wareegsan qalcadda. Maali Faysan ayaa ulteeda ku dhufatay dhulka, waxaana soo baxay buundo ka samaysan xidido geedo. Saddexdooda ayaa isku mar u dhaqaaqay dhinaca qasriga. Waxay u malaysay inay la kulmi doonto qoyska wiilka, balse waxay ku dhacday shirqool weyn. Farxadda gabadheeda darteed, Maali Faysan waxay si qasab ah u gashay qolka xafladda. Waxay samaysay dhoola caddayn qasab ah oo aysan doonayn. Qof walba wuu og yahay in Maali Faysan ay ka cabsi qabto birta. Nasiib darro, miiska cuntada waxaa la dhigay wax walba oo bir ah. Waxaa cad in qoyskaami ay doonayeen inay Maali Faysan ku ceebayaan goobta. Waxaana ka sii daran in iyadoo lagu yaqaano inay tahay boqorada keynta, haddana lagu soo hordhigay hilibka waraabaha. Boqorada cusub waxay iska dhigtay inay waxba ogeyn, balse si joogto ah ayay u weeraraysay. Kani ma ahan meel wax lagu iibsanayo, haddaba yaa u dulqaadan kara arrintan? Dhab ahaantii, boqoradu waxay sugaysay in Maali Faysan ay carooto. Tani waxay ahayd qayb ka mid ah qorshaheeda. Waxay doonaysaa inay qasabto Maali Faysan inay xanaaqdo. Boqorku ma fahmin, wiilka aan waxba fahminna ma fahmin. Maali Faysan oo aad u kibir badan ayaa markan u dulqaadan weyday. Markii ay ku dhawaatay inay xanaaqdo, gabadhii amiirada ahayd ayaa gacanteeda qabatay iyada oo ka cabsanaysa in arrintu faraha ka baxdo.